guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Marmar badan lacag naqdi ah wax ku soo iibsigeeda inay tahay fikradda ugu wanaagsan, laakiin sidoo kale waxaa muhiim ah in sumcad samaysashada ay muhiim tahay. Sumcadda deyn qaadashada waxay kugu saamaxaysaa in wax weyn aad ku soo iibsato sida baabuur ama guri, iyo in lacagtaas aad waqti dheer ah aad isaga bixiso. Sumcadda deyn qaadashada waxaa lagu qeexay sida kartida qofka macmiilka ah uu shay ama adeeg ku heli karo ka hor inta uusan bixin, taas oo lagu saleeyo in soo qaataha wixii uu deynta ku soo qaatay mustaqbalka bixin karo. Haysashada sumcad deyn qaadasho wanaagsan waxay kuu oggolaataa in wax weyn aad soo iibsato. Sidoo kale waxay la micno tahay in qiimo yar aad ku heli kartid sicirka caymiska. Sumcad deyn qaadasho wanaagsan waxaa dhici karta inay kaa caawiso inaad hesho shaqo wanaagsan, maxaa yeelay waxay muujinaysaa inaad tahay qof la isku halayn karo. Sidoo kale waxay kaa caawinaysaa inaad guri ijaarato adiga oo qofka milkiilaha aad tusaya in adiga aad tahay qof la aamini karo. Ka hor inta qofka beeciyaha uusan ku siin deyn, inta badan waxay sameeyaan go'aan ah haddii aad dib u bixin doontid deynta lagu siiyey in kale, iyagoo ku saleynaya taariikhdaada deyn qaadashada. Haddii aadan lahayn taariikh deyn qaadasho, way adag tahay inaad qaadato deyn, kaarka deynta, ama guri aad ijaarato. Haddii aadan taariikh deyn qaadasho lahayn, waa kuwan 5 dalab oo aad ku bilaabi karto in sumcadaada deyn qaadasho aad dhisto. 1. Dalbo hal kaar oo deyn oo lacagta ku jirta ay aad u hooseyso oo aad meel badan ka dukaamaysan karto, sida xarunta shidaalka ama dukaamaha dharka. 2. Dalbo kaarka deynta ee nooca Secured Credit Card. Marka koowaad waxaad u baahnaan doontaa in lacag aad dhigto, kadibna kaarka aad u isticmaasho in waxyaabo yaryar oo aad joogto ah ku soo iibsato. Bil kasta lacagta lagugu yeesho oo buuxda bixi. Dooro kaarka deynta oo lacagta ujrada ay aad u yar tahay oo iska xaqiiji in warbixinteeda loo diro dhammaan 3 hay-adood ee sumcadda deyn qaadashada u qaabilsan. 3. Dalbo deynta samaysashada deynta. Lacagta aad amaahatay koonto ayaa lagu hayn doonaa ilaa lacagta aad dib uga bixiso. Waxay la mid tahay in lagugu qasbayo inaad samaysato koontada kaydka, laakiin waxay kaa caawinaysaa in sumcadda deyn qaadashada aad samaysato. 4. Deyn qaado iyadoo kaalmo aad ka helaysid qof kula saxiixa. Qofka deynta kula saxiixaya ayaa mas'uul ka ah in deynta dib u bixiyo haddii adigu aadan bixin. Weydii qof asxaab aad tihiin ama xubin qoyskaaga ka mid ah in kaarkooda deynta ah kugu daraan in aad adigu isticmaali karto. Waad isticmaali kartaa kaarka oo aad sidaas ku dhisi kartaa taariikhdaada deyn qaadashada, laakiin saaxiibka ama xubinka qoyska ayaa mas'uul ka ah inay bixiyaan deynta haddii aad adigu bixin kari weydid. Warbixinta deyn qaadashada waxay muujinaysaa sida wanaagsan ee aad u isticmaashay deynta lagu amaahiyey mar hore. Buundada deyn qaadashada waxay isticmaalaan
xogtaada deyn qaadashada ku qoran si ay u saadaaliyaan haddii adigu aad tahay qof la aamini karo oo deynta la amaahiyey dib u gudi karo iyo in kale. Deyn bixiyayaashu waxay leeyihiin micnayaal kala duwan. Sumcad deyn qaadasho wanaagsan laakiin guud ahaan buundo ka hooseysa 629 waxaa loo tixgeliyaa inay tahay sumcad deyn qaadasho oo liidata. 630 ilaa 689 waxaa loo tixgeliyaa inay iska roontaa ama dhexdhexaad. Iyo 690 iyo wixii ka sarreeya waa sumcad deyn qaadasho oo wanaagsan. Si aad u dhisto buundo sumcad deyn qaadasho, waxaad u baahnaan doontaa inaad leedahay ugu yaraan hal koonto oo deyn ah oo ay ku furan tahay ugu yaraan 6 bilood. oo waxaad u baahan tahay in ugu yaraan hal hay-ad ay ka warbixiso dhaqdhaqaaqaaga u sheegto hay-adaha deyn sheegayaasha 6 bilood ee lasoo dhaafay ama ka badan. Waxaad buundadaada deyn qaadashada ku wanaajin kartaa adiga oo qaada 5 tallaabo oo sahlan. 1. Biilashaada waqtigooda ku bixi mar kasta. 2. Kaarkaaga deynta u isticmaal waxyaabaha joogtada oo aad soo iibsato sida gaaska ama cuntada, laakiin iska hubi in bil kasta aad iska wada bixiso lacag baaqi ah yaan lagugu yeelan oo ah in ka badan 30% ee dhammaan deynta lagugu leeyahay. 3. Hal mar kaliya ha wada furan koontooyin kaar deyn oo cusub. Kaliya buuxso kaarka deynta ee aad dhab ahaantii u baahan tahay. 4. Koontooyin ha furnaadaan oo ha yeesheen inta suurtagal isticmaal aysan ka ahayn haddii ujrada aad bixiso ay yarayso. 5. Warbixinada taariikhda deyn qaadashada ku qoran ka fiiri wax qaladaad ah. Haddii aad ka aragto xog qalad ah, warqad u dir hay-adda u qaabilsan adiga oo raacinaya caddayn ah qaladka aad ku aragtay. Waa inayna kugula soo xiriiraan 30 maalmood. Waxaa jira shirkado badan oo buundada sumcad deyn qaadasho go'aamiya. Sidaa awgeed, waxaa dhici karta in buundooyin kala duwan ay kugu qoraan oo badanaa ay dhici karto inay bedelaan. Hadafku wuxuu yahay in buundada sumcad deyn qaadashada buundada wanaagsan oo lambarada ugu sarreeya ayaa ah lambarada ugu wanaagsan. Dhisidda buundo sumcad deyn qaadasho waqti ayay qaadataa, laakiin waa wax muhiim ah. Maxaa yeelay ganacsadayaasha waxay tusaysaa in adigu aad tahay qof la isku halayn karo oona la aamini karo. Haddii deynta si mas'uuliyad ay ku jirto u isticmaasho, manfacyadeeda waad ka faa'iidaysan kartaa adiga oo aadan lagugu yeelan deyn xun. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.